iyadoo shirka London ay ka hadlay 2 maalin oo kaliya ayaa maanta ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron waxa uu waraysi gaar ah u siiyay telefishinkan caalamiga ah Universal. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa waxa uu weydiiyay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron istiraatiijiyadda dawladda Britain ee ku aadan arrimaha dalka Soomaaliya shirka kadib. Waxaana ra'iisul wasaaraha uu ku jawaabay. Well, the strategy is to try and get the whole of the world to get behind the efforts that the Somali people themselves are making to build a stronger, safer, more prosperous country. There are good istiraatiijiyaddu waxa ay tahay in la isku dayo in dhammaan caalamku uu u istaago sidii ay u taageeri lahaayeen dadaalada ay dadka Soomaalidu wadaan si ay u dhistaan dal nabdoon oo horumar ku tallaabsada isla markaana xooggan. waxaa jira calaamado muujinaya in dadka Soomaalidu ay wax wanaagsan ku dadaalayaan. waxaana aan rajaynayaa in shirka London uu sabab u noqon doono in dawladaha kale ee caalamku ay diiradda saaraan arrintan isla markaana uu noqdo mid caawiya dadka Soomaalida. haddii ay noqon lahayd xoojinta AMISOM dadaalada dhinaca nabadda ee magaalada Muqdisho ay ka wado iyo haddii ay noqon lahayd sidii loo hubin lahaa dawlad xooggan marka uu dhamaado waqtiga dawladda ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya iyo dhismaha guud ahaan qaybaha kale ee dalka Soomaaliya. shirkan waxa ujeedadiisa dambe ay tahay in uu rajo siin doono qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan da'yarta sidii ay u heli lahaayeen shaqo iyo cod in ay ku yeeshaan Soomaaliya iyo waliba mustaqbal wanaagsan. waa arrin u wanaagsan Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. In the end, what it's all about is giving everyone in Somalia, particularly young people, some hope of a job and a voice and a future. It's good for Somalia. Si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay TV-ga caalamiga ah oo waraysi gaar ah uu siiyay ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron isagoo dhanka kalena uu sheegay in arrimaha Soomaaliya dawladda Britain ay markan ay u guntatay isla markaana ay wax ka qaban doonaan xaaladda dalka Soomaaliya. iyadoo shirkanna la ogsoon yahay inay ka soo qayb galayaan in ka badan 40 dawladood oo ka mid ah dalalka caalamka. Soomaaliya aad u fara badan ayaa waxay dhigta u taagayaan shirkani go'aamada ka soo bixi doonaan ma yihiin kuwa wax ku ool ah ee ka bedeli kara xaaladda dalka Soomaaliya. dhanka kalena ergada lagu casuumay ee Soomaalida ayaa iyana durbaba soo gaaray dalkan Britain iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo waliba madaxweynaha ku meel gaarka Soomaaliyana la filayo maalmaha soo socda in iyana ay soo gaaraan. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal Westminster.